السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا سلامي أصحابي خالق من باجوكتين محمد الله هاي وقتي وايوه هيدين معنا هذا جمع مبارك يعني الله هاي أصحابي خالقها ما شاء الله وحنا كلمة خلين إن بدنا يعني كلمة مشغول أوي ذي كلمة خلين كلمة جرو أصحاب خالقها مركا أصحابي وحنا تحسينا يا على رحمة الراحمين إلى يا ونحرسته hibo falaq Allah naxariisto asxaabay idinkoo dhan inta ummadda islaamka oo Soomaaliyeed ay ka geeriyootay oo geeriyadeeda u danqatay iyo familkeeda kulliba waxaan leeyahay Allah naxariisto raahimiin naxariista jannada Allah ka waraabiyo adduunyada sideeda waxay tahay in wax badan lama joogaayo dadka qaar laakiin waxay u maleeyaan in oo adduunyada oo maanta ay tahay wax lagu sii waaraayo isma dhahaynin aan hibaha taacanka xanuunkeeda xitaa qof oo la socday ma ahayn geerideeda unbaa maqlay geerideeda markaa maqlayna aad iyo aad ayaan aga naxay maanta waxay ahayd hibo gabar Soomaaliyeed maasha Allah oo bulshooyinka Soomaaliyeed social media magaca qiimo iyo qaaya leh ku leh ay hibo qof oo maanta la yaqaanayay oo magac ku leh ay ahayd maanta in Soomaali macnaa waxay yiraahdaan qofaad taqaanid geerida kuma fiicna laakiin geerida aad macnaa marantas qof ay ugu fiicnaan iyo qof ku fiicantahay ay jirin annagoo dhan waan ka wada simanay geerida adduun waxa la saaran yahay adduunkan waa wax yar waxa la saaran yahay waa wax yar hadii baydan oo Ilaahay oo marantas oo Ilaahay u fududeeyay alxamdulillah qabrigeeda laha waasac la aga dhigo naxariista jannada Allah ka waraabiyo wax kala dana ugu duceeyay malaha adduunyada saas aragtid waa ujeedid waxa ka qaadanaysa adduunyada karfan cad aga qaadanaysa waa labisanaysa labiska nooc ugu dambeeyay xirnay maanta in kabaha nooc ugu dambeeyay gashanaysa waxa leedahay in modelka ugu dambeeyay aan maanta in uu labisto laakiin waxa adiga ka qaadanaysa hal maro ay kugu dambaysa qaadanaya adduunyada maradaas oo ah kafanta maartay maalinta ka qaadata adduunyada kugu dambayso marka maxaa aniga marka adduunyada maxaa iska siinaa waa adduunyada marka maxaa iska siinaa inta sa ujeeda adduunyada saaran yahay haybi laguma jirto macnaa maraantaas haddaan anaga wax xun ku socono in anaga oo bidaafa Ilaahay weydiisano nuguma jirto bidaafina Ilaahay weydiisano nuguma jirto laakiin waxa uu dhaqmaynaa sidad oo adduunyada oo la siiyo kaleente oo weligooda macnaa oo la dheheenin macnaa waad waareysaan ma dhimanaysiin dad la dhaayo kaleente anaga u dhaqmaynaa saas maaha wardadiyow adduunyada waxa laga tagaayo waa in kooban waa in yar oo gaaban waa in yar maaragtay oo gaaban waa sana u jeedid waa فأنت عملنا أنا جنبها فخلاننا وكبرينا مر بقى مرينا وحالي كان هاي وو تسمع أرتي معهن مركب إن أنت أصلا حد بشيء يعني إن تتكول عليه يعني يحرن ومر بالباب وناجي يجعل وأنا وناجي ده نجعل هاي وصبت كيها يعني وأنا صبت كانوا هاي ومر بالباني يتاجران ومر بالباني أو وسيدكي يجعل أي محبوب بشيء يعني marka inta umada islaamka walaalayaga u xiran adduunkan siisa wajidna waa sana wajidid qofka hadduu maqan yahay aragto intuu ku maqan yahay lama dhaayo mashquul adduunya iska haysto mashquul adduun maartay iska haysto adigoo saas u mashquulsan tahay oo intuu ku maqan yahay oo isleedahay oo dadka leeyahay waxaa maqlaysaa hebel goormuu geeriyooday hebel mar hore uu geeriyooday marka walaalahayga qaaliga ah waxaan idin leeyahay hadalkayga hadduu idin dhibay iga raali noqda hadduu hadalkayga fahanteen waxaan jeclahay in amrahantaas inaan wadada fiican idinka ku dhaqaaqdaan mar walba wax fiican inaad samaysaan mar walba aan jeclahay adduunkani walaal lagu yahay inta la saaran yahay waa wax yar oo kooban saas u jeedida loogu tagay aniga aan bir dhimanaa ma sheegi kari wajigayga maanta inuu idinku dambeeyo ma ogi ma sheegi kari
marka